nabad baan ku baaqaya anfari hal maalino iyo xidha wadada madooba iyo sala noqday haddaan anigu tallaabooyin qaadana maxaan noqoni yaan la igu qasbin waxyaabaan imika diyaar aan u ahayn weli fursad baan siinayaa Dr. Abiy Ahmed iyo maamulkiisa weli fursad baan siinayaa madaxweyne Mustafa Maxamed Umar iyo maamulkiisa laakiin hadday sidaa ku sii socoto go'aano kalaan qaadanaynaa waa iga dhab intaa kadib iyo intaa ka badan uma dul qaadan karayo dadka yaga in sidaa laga yeelo imika ka horna waan ku baaqay hadday xaaladu sii socoto inaan jabhad samayn doono intaan jabhadda qoonafis kaga baxo waan ku dhowaa samarkiiba iga soo dhammaanaya laakiin weli waqti baan bixinayaa weli nabadii baan rabaa weli soomaalinimadii baan rabaa weli rajaan ka qabaa madaxweyne Mustafa Maxamed Umar inuu caqligu shaqeeyo inuu maamulka Oromiya qabto inuu maamulka Afarta qaybiisa naga qabto inuu dadka la dilay ee la barakiciyay la gubay ee la laayay inuu u gurmado inuu dhex tago inuu u hadlo hadduuna u hadlin inuu warbaahinta u daayo hadduuna u dayn karin dadku inay banaan baxaan xataa inuu aqbalo dastuurkeena ku qoran tahay qofku inuu banaan bixi karo inuu wixiisa sheegan karo reer dulmidiid mar labaad baan ku celinayaa magacii aad qaadateen ka dhabeeyo oo beritoole waxaan idinka aragno ilaa imika xataa hal qoraal soo samay laakiin markii banaanbaxyo ama jijiga ama dhagaxbuur ama meelo kale laga sameeyo waa soo daysaan laakiin markii city laga sameeyo maya maxaa dhacay maxaa si ah tvgan yaa amarka qaad waxaan maqlayay Cabdillaahi Cakaara aawe meesha baad ka shaqaysaa baa laygu lahaa waxa la xasuuqaya waa meeshaad wax ku soo baratay high schoolkii Dirdhabe iyo dadkiisii waxaad ka soo carartay Sweden ku keenay dulmi bay ahayd aw warbaahintii waxaad ka hadli jirto dhan aawe mise mar haddii khalaas la taliyaha madaxweynaha noqotay ood cashaysa waa khalaas